maqsadka uu wax u dabiibayaa inaanu ahayn kasbi iyo maal shaqayso ee marka ugu horraysa niyadiisu inay ahaato inuu u gargaarayo qof muslima oo dhibbana ah oo laga awood badan yahay wain istansaruukum fi ddiini facalaykum annasr haddii qof muslimihii kaaga baahdo gurmad xaq bay u tahay inaad u gurmato laakiin haddii aad takasub iyo shaqo uun aad ka dhigato waxaa laga yaabaa in ilaahay tuftaada uu laalo oo maqsadka koowaad ilaahay kuu eego oo ah adduunye raadis laakiin maqsadkaagu hadduu yahay marka hore gargaar inaad bixiso wixii ilaahay iktisaab kaa siiyana oo xalaal aad ka qaadato haadaa waa shay laakiin muhimka hore haddii aad u furataba inaad maal uun ka shaqaysato oo haddii 2 geed ama 3 geed aad isku darto $200 $300 aad ku qiimayso dadka diintii waad nacsiinaysaa waanad ka firdhinaysaa waxay u baahan tahay waxaad og tahay inaad dadka ka iibiso maalin baa waxaan arkay laga sheekeynayay nin tabiib acshaabi ah oo xanuuno badan leh waan daweeyaa xanuuno mustacsiyaho caalamkuba uu ka farataagtay ayuu leeyahay anigaa dabiibaya sida kansarka oo kale iyo aidiska oo kale iyo haddii alla yidhaahdo coronaviruskan oo kale iyo kuwaasuu haddii alla yidhaahdo waan dabiibayaa odhanaya daawaan samaynayaa hadduu yidhaahdo xanuunadii mustacsiya oo loo taag waayey horeba waa xaqiiqo in xanuun kasta ilaahay dawada soo raaciyo laakiin dawadii barashay u baahan tahay barashadiina haddii aad safaxaadka un baan ka daawanaya aad tidhaahdo waad lu goynaysaa khalqiga maalin baa waxaa la iga sheekaynayay nin dhirtaa iibiya ayaa wuxuu leeyahy waxaan hayaa dawadii bidaarta waa la waraysanayaa gabadh baa waraysanaysay dawada bidaarta ayaan hayaa buu yidhi oo dad badan baa haddii alla yidhaha caynkan uu ku bogsaday oo haddii alla yidhaha timihii u soo baxeeno markaasaa inantu waxay tihi wadaad adigu bidaar baad leedahay horta maxaad isooga dawayn weyda haddii dawadii bidaarta aad hayso adigu maxaad bidaarta isooga dawayn weyda wuxuu ku yidhi anu cuqdad kama qabo bidaartayda anigu cuqdad kama qabo marka qofka in la lugooyo muslimka ah oo maalkiisa si xaaraana loo qaato waa shay shareecadu ay diiday marka qofka mucaalijka ahi inuu xalaal miirad noqdo waric inuu noqdo xalaal miirta ah oo duruufta qofka bini'aadmiga ahee ku soo eertayna uu eego oo aanu naxariista ka tegin alraaximuuna yarxamuhum arraxmaan irxamuu man fi lardi yarxamukum man fi samaa taasi waa qodob waxaynu markaa maanta u gudbaynaa haddii alla ka dhigo ruuxan bukaanka ah mariidka ah ee xanuunada ruuxiga ay ku dhaceen maxaa looga baahan yahay ruuxan bukaanka ah ee xanuunadani ay asiibeen xanuunadani waa wax jiroo dafiraad ma leh ruuxa diidaana cadceed soo baxday baan gacan ku qarinayaa nin la weeyaan mashkiladdani way jirtaaye sidee loo dabiibaa ayuunbay taagan tahay haddaba ruuxan bukooday ee ama ishu ku dhacday ama uu jinkuba asiibay ama sixirba lala helay haddii uu bukoodo sida ugu fiican ee uu samaynayaa maxay tahay maxaase looga baahan yahay waxa looga baahan yahay ruuxa buka ee dhibbanaha ah marka ugu horraysaba inaanu bini'aadmi ku eeranin xanuunkani waa xanuunada ikhlaaska iyo daacadnimada iyo ku-xidhnaanta ilaahay lagu daweeyo wey waa xanuun adigu aad iska dawayn karto adigoon cid kaleba kula eeranin marka waxa talada ugu horraysa ee lagula talinayaa ay tahay qofka uu sixir haleelo ama jin haleelo ama iliba ku dhacdo an yucaalija nafsah inuu isagu marka hore isdabiibo imaam axmed binu xambal radia allahu tacaala canhu wa ardaah ayaa waxaa u timi isagoo ardaydiisii la fadhiya qof dumar ahoo aad u dhibaataysan duruufaysan oo basiira ka muuqato sheekhii bay u timi sheekhow dhibtaasa ay haysata
waxaan kaa rabaa inaad duca igu caawiso qof muslima oo aad u filayso inuu ilaahay u dhow yahay inaad ilaahay ii bari tidhaahdo waa masalo bannaan shareecadana ku bannaan weeye laakiin imaam axmed binu xambal radia allahu tacaala canhu wa ardaah haweentii ku soo eeratay wuxuu ku yidhi adiguba addoon ilaahay baa tahaye orodoo adigu ilaahay dantaada u sheego ilaahay bari ilaahay baa kaashifal kuruba cidi kaama yacni xigto rabbi adigu bari iyada oo niyad jabsan bay iskaga tagtay sheekhu markii ay gabadhii ka tagtay ayuu ilaahay beriyey inuu ilaahay dhibaabaha ka dulqaado addoontan ardaydii baa waxay yidhaahdaan sheekh markay kula joogtay waa adigii dayriyey eryey maxaad iminka ugu ducaynaysaa wuxuu yidhi 3 masale baan iminka ku eeranayaa 3 jaanis baan eeganayaa 3 fursadood baa ii furan hadda halkay marka hore fursad keliyii iiga furayd fursadda koowaad waxa weeye qofka dhibanaha ah inuu isagu ilaahay toos ula xidhiidho istijaaba dacwa ku jirta ruuxa hadduu dhiban yahay inuu ilaahay toos ula xidhiidho waxaa ku jirta istijaaba dacwa bidaliili qowlihi tabaaraka wa tacaala amman yujiibu almudara idaa dacaahu wayakshifu الsuuءa waa axadka dhibaataysan kurbada ka fayda amman yujiibu almudara haweentani iyadaa dhibanayd ilaahayna wuxuu siiyey fursad uu ducadeeda ku aqbalo waa mudar baa la yidhaha waa qof dhibana ah ilaahayna dhibta wuxuu u keenay qofka inuu tadaruc iyo allabari iyo isdhuldhig laga helo afalaa yarawna annahum yuftanuuna fii kulli caamin maratan aw maratayni uma laa yatuubuuna walaa hum yadakkaruun markay dhibi timaaddo maqsad baa ka dambeeya addoonkana addoonnimadiisa haddii alla yidhaahdo la xaqiijinaya inuu ilaahay ku xidhnaadana la rabaa ilaahayna tabaaraka wa tacaala uu leeyahay udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin qof kastoo ka santaaga oo ilaahay ducadiisa yaraysta ama ilaahay ducadiisa ka leexda wuxuu gelayaa naar jahannamuu gelayaa adduunyadana wuu ku caarcaaraya marka waxaan rabaa buu yidhi addoontan iyo ilaahay inaan isku xidho addoontanna ay ilaahay barido si ilaahay ducada uga aqbalo saa'iyadii baa dhibban waa qodobka labaadna waxa weeye labada ruux ee muslimiinta ee kala maqan fursad baa ku jirta in ducadooda la ajiibo ducaa'ul ghayb baa la yidhaa labada ruux ee muslimiinta ee kala maqan ee isxasuusta ee isu duceeya ducadooda ilaahay waa aqbala waa laba qodobka saddexaad waxa weeye inaan hiqata nafsi addoontan aan ku abuuro mar walba baahideeda inaanay cid kale oon ilaahay ahayn aanay kula eran allahu samad ilaahay baa la irkadaa marka inay si qanaaco leh ay ilaahay ugu xidhnaataan rabaa marka waxa muhiim ah qofku hadduu dhibana yahay inuu marka hore isagu uu cilaajka bilaabo inuu daaweynta isagu bilaabo sideebuu haddaba isu daaweynayaa wuxuu isu daaweynayaa qodobka koowaad yukhiru dikra allah xanuunnadan waxyaalaha lagu dabiibo ee antibiyootika culusku ah ee aanay u adkaysan karaynin waxa weeyaan dikriga ilaahay oo la badiyo dikriga ilaahay oo la badiyo waxay ku keenaysaa booskii bay ka xidhaysaa fursaddii bay ka xidhaysaa jinka iyo shayaadiinta wuu ka diiqadoonayaa mar kastoo qofku uu dikriga ilaahay ka fogaadana wuu la rafiiqayaa jinku waman yacshu can dikri الraxmaani nuqayid lahu shayطaanan fahuwa lahu qariin ruux kasta oo dikriga ilaahay ka taga waxaan ku sidkaynaa oon ku xidhiidhinaynaa ibliis iyo shayطaan fahuwa lahu qariin markaasuu saaxiib la noqon doonaa shayطaanku marka hadduu saaxiib la noqdona dhibaabadiisa wuu iska wadan karaa waxa qodobka labaad ah adducaa inuu gacmaha kor u taago udcu allaha waantum muuqinuuna bilijaaba udcu allaha waantum muuqinuuna bilijaaba
إلهي قعمها هوس دكتا إذنكو يقينسا إنه إلهي إذن أجيبي إلهي سبحانه وتعالى وكحشو ذا قف بنا آدمي وقعان هورصدي إنه فرمنانكو عليو إبليس لعنة الله عليه وآوض تقانين بإلهي دعاء كأجيبي فكيف لا يجيبك أدقوا موحدة وإلهي حقيق صنو بريا سيديبانو إلهي كو أجيبين إبليس با إلهي وحو ويديستي أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين الموحد الذي يسجد لله روح موحدة وفودي سا إلهي درتي دولك أردقي حدو يقين دبا الله يمادو إلهي وأجيبيا إلهي وأجيبيا انت أردبت كجرنا إلهي حسنات إيا الدرجات بكركو يليا marka waxa muhiim ah ruuxa muslimka inuu yaqiin ilaahay ku baryo oo hadii mar la ajiibi waayo mar labaad la ajiibi waayo inaanu ilaahay ka qancin albaabka kale ku furan ijaabo ku siinaya waa kii markaad ilaahay albaabkiisa ka qancado albaabka ilaahay ha ka tagin waxa laga sheekeeyaa kutubta qaar kood aan ka aqriyay nimbaas 70 sanadood buu xaramka tagayay 70 سنة أيو حرم كتجي وضوافيا مركاسا وحولي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك مركاسا رواق بحيا مروا البوحل لي لا لبيك ولا سعديك لا لبيك ولا سعديك 70 سنة ما انتي الدنبي أيا نندب السعودي أو إسنا حاجي أها baa wuxuu maqlayaa dhawaaqa ninkan ku dhacaya baa ilaahay maqashi markuu labayk yiraahdo la labayk baa la leeyahay ninkii baa Allah hadloo war maxaad iska daalinaysaa sootan la labayk doon lagu hayo markaasuu yiri maande 70 sana hum baan labayk tahay ma maantu maad maqashay 70 ka sana baa albaabku iga xidhnaa maxaa markaa wuxuu yiri albaab kale aanan haysanba الباب كأمها اللي يديد أمها اللي يغفره الباب كلون قراعه ما قرنيه الباب كلون آن هوليو وآن رتشوكو أوجهي بانشرين مركا يسوق من سكور تجنانية مركا سا إلهي وحو الصمد اللي غيري الآن لبيك وسعديك هذا الباب كلا غفر هذا لقو أقبله ولقو قات مركا الروح مسلم كيه إنه قنعمه ما لنت آتره دوان بري والي أجيب واي maalintaas albaabka ijaabadu ka xirmaya la taqnatu min rahmatillah innahu la ya'asu min rawhillahi illa alqawmul khasirun abadan haka qusan ilahi inta aad nooshahay khaliqaaga haka qusanin inta aad nicmo haysatun baa ka badan dhibaatada maanta ku haysata marka muhiim waxa ah addu'a mukhul ibadah الله بريغو ودوح عبادته صلاة أين تكنانا وابا دعوة ويبريو ويان مركا قفك مؤمن كأهي مضر كأهي لبناها عدو قاسي وكهاد هلي وحا أقمهم سن الرماها أقمهم سن وحا كمدا الدعاء عليكم بالدعاء انت إذنان مخلوق كلا أبتغن وهبلوا الطبيبي هبلوا عين كان أيدنان أوران ففروا إلى الله حق إلهي كؤيرتا الله السمد إلهي بالله إركضاي قضبك كلاء مهم كأهو قف كان ببناها إلهي كضبيب يا وحوي التوبة توبوا إلى الله توبة نصوح توبوا إلى الله توبة نصوحة توبتها إلا بنا توبدو انت اني قرقرده غادين اما halka ka soo bixin waa maftuux dambiga doontaba samee la taqnatu min rahmatillah tawbada ilaahay ka qoosanina wax kasto in asiiba fa bima kasabat aydina wa wax inaga kasbakeena kayimi wama asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir marka hadii tawbada laga aqbalo dhibaabihi uu baxaya sababtoo ah dhibtani waxay ku timi waa ciqaab ilaahay oo ka dhalatay macsiyadaada haddii macsiyadii aad geysatay dawadeedii aad hesho istighfaar ah xanuunkii uu baxaya xaqiiqatan uu baxaya
ويدبي ما تماده إلا بالمعصية معصيتنا تاد أديكو سميسة كليا maahan taad ka dhiidhiyi weyda lafteedu waa macsiya tii agtaada lagu sameeyay aad ka dhiidhiyi weyda baa macsiya khalqigu waxay u haystaan tay iyagu sameeyaan oo kaliya inay macsiya tahay laakiin haddii hareertaada macsiya ka socoto aad ama meesha iskaga tegi weydo ama aad ka hadli weydo awooddeeda haddaad leedahay way ku asiibaysaa wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa macsiyada bilaadaada lagu sameeyo haddaad action ka bixin kari weydo dhibteeda qayb baad ku yeelanaysaa marka at-tawba xataa ehelkaagu dembiyada ay sameeyaan ee aad ogaatay aad ka jawaabi weydo iyada lafteeda dhibaato kugu soo celinaysa at-tawba wal-istighfar waxa kaloo muhiim ah oo xanuunadan lagu daweeyaa al-a'maal as-saalixa ha kala qaadin camalka saalixa ahi wuxuu dawo u yahay sixirka iyo jinka iyo ish wa kathratu al-qurbat min sadaqa iyo waxyaalaha ilaahay loogu dhawaado aad badiso oo ay kow ka tahay sadaqadu daawu mardaakum bis-sadaqa daawu mardaakum bis-sadaqa daawu mardaakum bis-sadaqa war dadka idinka buka ku dabiiba sadaqada ku dabiiba fakam min shakhsin oo intuu sadaqa bixiyay ilaahay uu xataa xanuunada maadiga ilaahay kaga dabiibay baa badan haddaynu silsilada gallo inta qof ee sadaqa ay bixiyeen ilaahay uu faraj ku siiyey casharka waynu ka gudbaynaa umana jeedo maanta casharka laakiin sadaqadu tudfi'u qadab ar-rahmaan as-sadaqa tudfi'u qadab ar-rahmaan sadaqadu waxay baqtiisaa cadhada ilaahay haddii cadhada ilaahay kaa baqtidana waxaad noqonaysaa addoon ilaahay haddaad addoon ilaahay noqotana laysa laka calayhim sultaan kuwa ilaahay magan ka dhigtuu ibliis laysa laka calayhim sultaan ilaa man ittabacaka min alghaawiin marka waxaad noqonaysaa min cibaadi araxmaan baad ka mid noqonaysaa as-sadaqa waana shayga keliya ee qofku markuu sakaraatulmowtku qabto uu tamaniyo as-sadaqa weeye as-sadaqada وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين محو حسوستي صدقة صوم باكري صلاة باكرتي سكاكرتي خيرات أو دم باكري مرك إلهي كشفك وقاضه هلك وآخر كل يهي فكشفنا عنك غطاءك أو أركه ay halkaa isa soo taagto inay tooba furayn baa telefishin ilaahiya loo daaray dabadeedna wuxuu daalacday manfacada iyo faa'iidada sadaqadu lahaan lahayd markaasuu tamaniyayaa lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariibin fa asaddaqa wa akun min alsaalixiin markaasuu xasuusanaya sadaqada الصدقة تضفئ غضب الرحمن عليكم بالصدقة عليكم بالصدقة والله إنك متصدقة إلي مكرتو أو تشين مكرو أو سحر لو مكرو ننكو هادو صدوق يهي وصدقة بدن يهي باب كاسي ما ومفر رئيسك إلهي باك يعني محان كل هذا إلهية قضبك كلاء وروح يسكت ضبيبة وحاكم إذا الصم الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوه بالصيام شيطان كوحو أود أولي هي إنه حديدة قفق بن آدم قديقة وراعه حديدة ديقة وحا مركا كعريريا شيطان كوا صومك كعريريا مركا روح مصابك أي إنه صومك كد ذالو وشيء مهم أنتو ككري كرو قضبك كلا حجك سيدا إنه كور قبنو ينفي الذنوب كما ينفي الكيلو من الخبث الحديد وحيالها حجك وفائدة كي هي وحوية فقر جنو أنفياء ذنوب تنو ضعفاء التوبة أو حويا الإسلام والتوبة والحج صدح دائما السلو وحي بابي إيان ذنوبتي هوري
وحكلو مهم تلاوة القرآن تلاوة القرآن قفك مسلم كأهي مركو قرآن كأقريه يناجي ربه تبارك وتعالى وحولك هوديا أو لهضليا أو لمناجونيا أو لمحادثونيا والرب وحكا جمع عام بدن مجرى يمركاد قرآن كأد لازمته انت هرو دوحو اسكديا إنو إذن كلا جويو أديك يردن كقرآنك لكن هداد قرآن روق نقطو أتشلبك أو آسطو قرآنك وكود دمي دونا قلبك أغنى واردايا وحكلو مهم إناد كد داشو إناد منفعيسو مسلمين تكالي haddii alla ka dhigo muslimiinta dibaabaha la qaybsato xasan albisri raximahullah ayaa waxaa u yimi nin qani oo lacag badan haysta halkaa jilibka ayaa dhaawac kaga yaala muddo dheer ayaa jilibkaas dhaacaan ka soconay waqtigaa dhakhaatiirtii caalamka ee ugu aqoonta badnayd buu u tegey waxba way ka tari waayeen u fiirso sheekada waxba way ka tari waayeen sidii buu dheecaanku uga da'ayaa dhakhtar kastaaba gacantu ka taagtay wuxuu u yimi xasan albisri raximahullah wuxuu yidhi dhibtaasa ay haysata dhakhtar adduunyo oo ii hadhayna ma jiro ila taliyo maxaan yeelaa wuxuu yidhi waxaad samaynaysaa adduun sooma haysatid haa soo indha-indheeyo meelaha biyuhu ku yar yihiin ee dadku ay u baahi qabaan biyo ceel uga qod ceelkii buu qoday ishii ugu horraysay ee biyahayd markay soo baxday ayaa wuxuu leeyahay ayaa dheecaankii joogsa alcaynu bilcayn ishii markay soo booday ishii ceelku ayaa dheecaankiina ilaahay ka joojiyey subxaanahu wa tacaala marka waxa muhiim inaad u ixsaan fasho muslimiinta kale allahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih inta aad qof muslima ku foogan tahay inaad dhibaatada la qaybsato adna taaduu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku islaaxinaya waxaa muhiim oo qodob muhiima ruuxan buka in wixii macaasi uu ku jiri jiray uu ka tooba keeno ka soo noqdo faraha ka qaado laakiin beerka jecli xaydha jecli xaggana waan ka maxaan ku dhahdaa qaraabanaya xaggana waan u soo ordaya wax isqabanaya ma aha inaad laba gardaaq noqoto ma aha haddii aad taa'ib tahay tuubuu towbatan nasuuxa laakiin haddaad tidhaahdo saaca bisaaca marna waan macsiyaysan marna waa caynkan shimbiri laba geed ma wada guratee hablayow laba guri miduun gala socon mayso sheekhow anigoo dhibaataysan baan ilaahayna ku cararaya haddana waan caasiyayaa isma qabato in kaana xubbuka saadiqan la atactahu haddii jacaylka aad ilaahay u qabto uu dhabkaa yahay waad ateeci lahayd ina almuxiba liman yuxibu mutiicu axadka wax jeceli qofkuu jecel yahay wuu u dhega nugul yahay wuu ateecaa marka haddaad ilaahay jacaylkiisu ay kaa dhab tahay seeraha uu kuu diiday ka joog waxyaalaha adig iyo ilaahay idinkala fogeynayna ka hadh waxaa kaloo muhiima dee haddii aad ka hadhayso inaad heesaha maajinka ee haddii alla yidhaahdo dareenka kicinaya ee haddii alla yidhaahdo ilaahay kaa fogeynaya ee haddii alla yidhaahdo rabbi lagu caaseeyo inaad ka hadho waxaa muhiim inaad janaliska macaasida loogu talagalay ee khaalica isticmaalkooda inaad ka hadho waxaa kaloo muhiima saaxiibkii xumaa inaad ka hadho marka xanuunkani kugu dhacay inaad ilaahay dartii uga hadho dhammaan rufaqadii xumayd oo dhan sababta oo geelu waa iskeeda baraa saaxiibaduna way istababaraan markaa saaxiibka xuni waa wax aad iyo aad u liita awrkaaga awrbaas laguma xidhiidhiyo marka haddii ruux shariira uu yahay wuu ku qaadsiinayaa sharka sida loo kala qaadayo cudurrada kaleba ayaa cudurrada ruuxigaana loo kala qaadaa soo hargabka neefta laguma kala qaado oo TB-da neefta laguma kala qaado oo coronaviruska neefta laguma kala qaado
qofka raa'ixadiinu 40 maalmood isu baxdo isku dabeecad noqonaysa inna al-khaliila bil-khaliil yaqtadi saaxiibku saaxiibkum buu ku daydaa shimbirba shimbirkiisun buu la dura at-tayru yatiiru maca shaklihi ruuxan xun wax idin dhaxay yani isku keen xidhaa haddaanu jirin ma idinaan saaxiibteen laba waxaad noqon lahayd positive iyo negative la isa saaray dabbaa idin kala bixi lahaa marka qofka bini aadmigiihi cidduu ku xidhmay unbuu la dabeecad noqonayaa wuxuuna ilaahay qur-aankiisa ku yidhi alkhabiihaatu lilkhabiihiin waalkhabiihuuna lilkhabiihaat waalayibaatu lilطayibiin waalayibuuna lilطayibaat waxaad shaambadiisa qaadanaysaa oo suuraddiisa yeelanaysa hadba rafiiqaaga rafiiqa aad adigu saaxiib ka dhigato laasim wuu ku qaadsiinayaa dabeecadiisa marka inaad saaxiib fiican yeelato if iyo aakhiro aday dani kuugu jirtaa oo wixii maxaanku idhaha macaasi aha aad faraha ka qaado